sweet coin waayahay waxaan taabanaynaa marka hore halkan marka sweet coin soo gashid haddii aad tahay influencer wuxuu ku keeni doonaa shaashada marka shaashada uu ku keeno dabcan waxaad arkaysaa inta talaabado maanta aad socotay haddaani maanta waxaan socday 690 talaab dabcan aad u badno laakiin waa talaab fiican waaye marka wuxuu dhahay steps today kunkii talaabood waxaa ku helaysaa hal sweet coin dabcan marka saas u dhigantaa marka haddii aad kun talaabood socdo waxaa helaa hal sweet coin waa gudbeynaa marka muuqaalo hore jira dabcan waa idin sheegaa mar walbo daily reward halkan waxaad arki kartaa hadda claim xayisiinta hadda daawatado kale waxba ku helaysaa ma fahantay ka soo gudub qaybtan waa qaybta marketplace-ka ah oo aad wax ka iibsan kartid lacagta sweet coin-ka ay haysid aad wax uga iibsan kartaa qaybtana dabcan waa qayb kale oo iyagana akoonkaada iyo balance-giisa lagula socdo marka hadda akoonkayga balance-giisa markaa fiirino waa u jeednaa 5135 ayaa ku jirto marka halkan imaanaysaa halkan markaa imaadid waxaa ku arkaysaa programka influencerka halkan markaa imaadid waxaad ku arkaysaa programka influencerka hadda saa u jeedid Cabdishakuur Hussein Maxamed ku qoran waxaan feed gareeyay ilaa iyo 1000 qofood aan feed gareeyay 20 kamid maanta aan feed gareeyay 1000kaas qofood marka hadda waxaa lii ogol yahay inaan la baxo $100 marka ugu horeyso saaxiibayaal waa u jeedaan hadeertaan $100 waa diyaar $200 marka calaamadaas ay soo dhamaato waa qaadan karaa 500 haddii idan calaamadaas ay soo dhamaato waa qaadan karaa okay marka waxaan rabnaa saaxiibayaal lacagtaas inaan la soo baxno maanta itusi oo taabsi insha Allah ila soco marka ugu horeyso waxaan sameynaynaa waa wadada ugu fududeeya oo aad lacagtan kula bixi kartid insha Allah waxaad taabanaysaa $100 marka taabatid wuxuu ku dhahay claim iyo reward abaalmarintaada sheego yani claim gareyso marka abaalmarintan saa u qaato maxaa laga rabaa mataqaana waxaa laga rabaa 1000 qofood inaan soo infeed gareeyo almost hadda 1000 qofood waa soo infeed gareynay 1000 qofood ka badan infeed gareey aniga dabcan haddii aad joogtid Soomaaliya $100 waxaad u baahan tahay 1000 qof inaad infeed gareysid marka waa inaad taas fahamtid haddii marka aad wadan kale joogtid iyadana way ka yaraan kartaa wadamada qaarkood inay ka badan tahay waa laga yaabaa laakiin uma maleynayo wadan ka badan Soomaaliya inuu jiro sababta Soomaaliya 1000 qofood xujaa looga dhigay dad badan waxaa jira marka wadanka ay joogaan ama marketplace-ka wadanka u saaran inay bedelaan ka shaqeeyay dadkaas haddii aad ka mid tahay lacagtaada waa weyn kartaa waana heli kartaa laakiin shirkadda sharcigeeda waxaa ku qoran haddii aad wadankaas bedeshid in lacagtaada aan lagu siinin akoonkaadana la xiri doono marka akoonkaada si aan lagaaga xirin lacagtaadana ay kugu badbaado please raac wadada saxda ah haddii aad Soomaaliya joogtid iyo haddii aad Canada joogtidna intaba arkayna sida lacagta loola baxo insha Allah ila soco marka infeedska laga rabo waa 1000 sweet coinska iga go'i doonana waa maaragtay 5000 oo sweet coin marka akoonkayga waxaa ku hari doonto 22 infeed kaliya iyo waxaa ku hari doonto 135 maaragtay oo sweet coin ah marka 5000 oo sweet coin iyo 1000 infeed waa iga go'ayaan hadhow marka dib soo bilowaa ma fahantay marka kaliya marka dhahno waxaa leenahay accept and continue haye redeeming with your infeeds marka lacagtaadii hadda waa bedelanaysaa ma fahantay lacagtaadii waa bedelanaysaa cash ahaan ayaan lagu soo diri doonaa $100 waa ujeedaa Soomaan purchase waa ujeedaa waxaa noo saaray sax hadda $100 waa cash $100 si aan ula baxan waxa u baahanahay in maaragtay code-kan yarka maaragtay ya code-ka yarka waa soo guubisanay code-kaas soo guubisanay $100 waa diyaar $100 waa diyaar waa ujeedaan $100 la soo baxaa leedahay code-ka la isoo dirina waa kaas afarta code ay xarfaha meesha kugu qoran soo koobiyeyso markaas aad u koobiyeysatid isla markiiba email ku soo dhacayo isla markuu email ku soo dhaco how to get your money algu dhahay inta waa akhrin kartaa copy the code waxaa lagu yiri code gareyso copy code-ka copy gareyso and complete the type form provided below marka waxaa lagu yiri code-ka copy gareyso ma fahantay code-ka sidoo kale email ku soo diray laba wadaan oo furan inaan halkan intaan ka gudba galno yani ii sheeg muxuu ahaa inaan code-ka anaga wadano halkan shaqada kale meesirno waxaa kale noo furan inaan email-ka sidaan u soo galno waa ujeedaan email-ka purchase receipt of $100 la yiri soo gibso code-kiga haddana waa kan marka aan code-kan dabcan isticmaalayna already waa isticmaalaba hadda code-kan waxba kama dhifaysid ma fahantay already waa isticmaalay okay email-kan oo kala ku soo dhici karo marka code-ka hadda waa haysanaa waxaan leenahay marka hore u soco copy and go haddii aad rabtid email-kan ka socon kartaa ma fahantay haddii aad rabtid claim iyo reward halkan waa ka socon kartaa ma fahantay code-ka waa kaas waa haysataa marka adiga meesha jecesha ka soco waa isku midkii isku meeshu waa ma fahantay
marka halkaan hadda ka soconaynaa mase emailka ka soconaynaa claim iyo reward waa isku mid ama emailka dhex socda ama applicationka dhex socda waa isku meeshi marka saaxiib foomka saxda si sax u buuxi dad badan lacagtooda ku waayay sidaan please foomka sidaan u buuxi haddii aad foomka sidaan u raacdid waa ku hubaa waana xaqiiq lacagtaada ku soo gaaraysaa laakiin haddii foomka aad wax ka qaladid runtii waa adkaan doontaa halkan waxaa lagu dhahay hey as a Sweetcoin influencer you have done a great job of making the planet healthier it is time to redeem your cash reward okay marka waxaa lagu dhahay start waa bilaabaysaa ma fahanta waxaa lagu marka please waxaad gelisaa koodka aan kuu soo dirnay oo la mid ahaa 4 xaraf hal oo kale koodka halkaan aan gelinaa marka okay koodka marka waa geliyay dhag okay leh marka sidaas yeelo waxaa lagu dhahay what is your email address emailkaada muxuu ahaa emailka waxyaabaha ugu muhiimsan waa dad badan jiro emailka iska qalday kadibna waxay ku dhahayaan saaxiibow see u xalin karaa marka mar haddii emailka aad khaladid shirkadda in la xiriiro process la galo waxa waaye dooda geli ma fahanta marka emailkiisa aan u geliyay okay waxaa lagu yiri marka telefoonkaada maxaa waaye halkaan Soomaali ka soo dooro marka Soomaali ka soo doorto halkaan numberkaada meeshan gelinaysaa ma fahanta لحال لبا عدي سمالنا جوكتي دو كله حاجة حكرين كرتا لح سدح اوكي مركا عدرتان وحان قلي تليفون كيغا اوكي وحالا مركا Sweetcoin كا يوسر نمكا اكو يستعماش محاواي يوسر نمكا Sweetcoin كا اكو يستعماشيد وحاواي يعني اللينك كا ادريسي مقع اللي سعود على غارة ما فهمت اوكي يوسر نيم كذا marka soo fiiri user name meesha laga fiiri aan soo aragno waa isla arkaynaa wax walba ay tusoo itaabsi kan haday meesha kama socono inta imaanina marka hadda marka halka imaano waxaan rabnaa user name ka saxda inay soo koobeysan insha Allah ha sita marka imaadid halkan user name kaada waa kan user name kaada soo koobeyso user name kaada meesha sa keli kartaa si ay waxba kaaga qaldamin user name kaada soo koobiyay marka wax walba telefoonkaada iska qaldan emailka iska qaldan username-kaada si sax u soo koobiyay marka username-kiga hadana waa ka soo galiyay okay waxa uu dhahay please waxana la wadaagtaa yaani linkigaada influencer-ka okay taas ma dhib leh linkiga dadka u direysay meeshan soo galin fahanta marka linkiga waxa aan xifdiyay linkigaas ka jiro copy linkiga soo qaaday meeshan gelinay okay waa kaas linki waa soo qaadna meeshan aan gelin ka gudub waxa la hadana waa maxay magacaada koowaad gelin meeshan okay first name magacaada u dambeeya maxaa waaye last name kaada middle name ka gaalada ma isticmaalaan mugtay first name last name la do you use Instagram to promote Sweetcoin what is your Instagram username if you use multiple accounts to promote Sweetcoin please add all of them meeshan waxa lagu dhahay yani Instagram kaada geli marka Instagram kayga waxa waaye Abdishkur HM oo laga soo gaabiyo Abdishkur Hussein Mohamed Abdishkur HM okay waa gari Instagram kayga u galiyay waayahay waxa lagu dhahay sidoo kale ma isticmaashaa YouTube Snapchat TikTok Twitter or any other platform to promote Sweetcoin yes hadii marka daad isticmaalin maya waa dhihi kartaa qasama inaa yes dhahdin fahanta waxa uu dhahay dhamaan listiga social media soo taxay okay marka hadda halkan waxa dhan aan soo taxay qasamahan laakiin waxaan garinaynaa insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo waxaan garinaynaa mid kamid ah waxaan gelinaynaa tusaale kale YouTube okay YouTube ayaan gelinaynaa @abdishakur HM ama hadii kale si caadi ugu qorinaabo YouTube ayaan aniga isticmaalo badana YouTube ayaan isticmaalaa marka waxaan leenahay youtube.com/abdishakurhm marka hadii ay YouTube aadan ku promote gareenin waa ka gudbi kartaa ma fahanta ka gudub meesha waxa la please provide the screenshot on or recording of your post history about Sweetcoin okay if you posted few different posts history please add of them in a file okay
dib ma lahan waxaan tegaynaa youtube keena markaana soo ma marka waxaan imaanaynaa youtube keena kadibna waxaan taabeynaa our channel marka halka marka imaano please saaxiib yaal hadii dabcan youtube keenan oo subscribe ku saarnayn nagu soo biir halkan waxaan uga hadalnaa ganacsiyada online ka ah waxaan arki kartaa playlistigan inuu ku jiro KuCoin Exchange hadii crypto aadan aqoon sida account looga furto waxaad tagaysaa meesha casharada ku jira daawanaysaa hadii aad trust wallet furanaysid casharada ku jira 3 cashar waay Sweetcoin 3 cashar ku jirto affiliate marketing 2 ku jirto technology hal xaba ku jirto marka waxaan rabaa saaxiib yaal online business 16 ku jirto marka waxaan rabaa saaxiib yaal crypto 12 cashar ku jirto playlistiga tag casharada saan daawo sidoo kale community aan la soco waxaan badanaa soo gelinaa يعني waxaan soo gelinaa macluumaadka iyo dadka ku guuleystay abaalmarinada aan bixino muuqaalka hadda like saar si share galay commentiga hoos ku soo qor magacaada iyo saacada aad ogaatay in abaalmarinta sidaan oo kale ayaa kugu dhibin okay marka sheekadii ku dheeraanin marka youtube keena linkigiisa soo qaadanina gaar ahaan video kamid ah videoyada aan uga hadlaynay Sweetcoin marka Sweetcoin screenshot ka soo qaadayna Sweetcoin oo kale okay muuqaalkan oo kale soo qaad laakiin intuu muuqaalkan oo kale soo qaad okay screenshot nooga soo qaad marka weli meel Sweetcoin muuqata aan ka dhiganaa okay hadii aad adiga barnaamijkan la sii wadaagtid screenshot ka qaadayna marka sooma screenshot ka soo qaadnay halkaan imaanayna marka okay screenshot ka soo gelinayna soo gelinayna markaan okay ila soco step by step wax aan gogoynaa muuqaalka ma lahan wax walba ujeeda ituso itaabsi waaye saaxiibayaal ituso itaabsi anaga isticmaalna ma fahantay wax walba waxa waaye waa kula wadaaga insha Allah marka hadda sawirka waa kan soo gelinay ujeeda okay hello please use this question is if you would like to upload more files yani file kale hadii aad soo gelinaysid how do you wish to be paid sidee rabtaa lacagta in lagu siiyo meesha ugu muhiimsan waa sidaan sidee rabtaa lacagta Sweetcoin in lagu soo diro Sweetcoin marka waxaa jirto wax la yiraahdo Bible iyo wax la yiraahdo bank transfer via Wise marka waa qaab xawaalad ah oo iyadana digital ah marka waxay ku soo marsiinaysaa Wise transfer laakiin bangi ayaa halkaas gashan kartaa marka Soomaaliya oo kale haba ogna saaxiibayaal bangiyadeena wadanka way fiican yihiin horumar fiican ay sameeyaan laakiin ilaa hadda waxay suurta galiyeen lacag in laga diro laakiin lacag in lagu soo diro hal wad oo kaliya lagu soo diri karaa qof caadi ah oo dibadda joogo in uu caadi kugu soo diro yani waa suurtagal laakiin in online ka lacag lagu soo diro si automatic ah Soomaaliya way adag tahay wali marka hadii aad Bible leedahay Bible aad dooranaysaa marka Bible kan ugu fudud runtii marka xaqiiqada laga hadlo su'aasha markii isweydiinta waxa waaye Bible muxuu yahay sidee u shaqeeyaa hadii aad Soomaaliya joogtid oo aadan qof dibadda ku lahayn oo ehelkaaga ah horta sida ugu fudud waa in qof dibadda joogo oo ehelkaada ah aad tiraahdo saaxiib ii soo dir Bible-kaada waxaan rabaa lacag inaan ku soo shubto kadib Bible-kiisa halkaan gelinaysaa Bible-ka sidee marka meesha u gelinay Bible-ka dabcan waxa lagu furtaa email-ka qofku ku soo diraa email-ka meeshaan gelinay email-ka oo Bible-ka uu ku isticmaalo qofkaas halkaan gelinaysaa email-kaada ma aha lacagta email-kaasi ku dhacay marka lacagta email-kaasi ku dhacdo yani Bible ahaan ay u dhacdo hadii email lacag lagu diray wax qariib ku noqoto hala yaabin Bible suurta gelis Bible-ka marka mail aad form gelinaysid email-ka dabcan la geliyaa marka lacagtan qofkaas ay u dhacay 3 maalin gudahood within 3 business days waxa waaye gaalada kale sabtidii iyo xadda ma shaqeeyaan Sooma sida Soomaaliya aan jimcaha looga shaqeyn marka maalmaha shaqada ah oo 5 maalin oo from Monday to Friday ah oo yani isniin ilaa iyo jimcaha ah ayay dabcan ku shaqeynayaan ma fahantay marka email-ka meesha waxa gelinaysaa Bible-kaada gelinaysaa marka meesha waxa gelinaysaa Bible-kaada gelinaysaa marka saaxiibayaal Bible-ka aad gelinaysid waa in noqdo Bible qof ehel aadiin oo dibadda joogo hadii adiga Bible aad qof dibadda ku haysanin sida Bible loo isticmaalo adigoo Soomaaliya joogo muuqaala kaaga soo sameeyay qaybta description-ka ka raadi qaybta description-ka muuqaalo badan ku jiro laakiin Bible-ka markii ka hadlayo raadi hadii kale waxaad tagtaa maaragtay videoyada ugu dambeeya soo gelinay sida lacagta loola soo baxo Sweetcoin iyo sida Bible loo sameeyo muuqaalkaas fiirso marka saaxiibayaal way warku u daalinin meesha waxa gashan kartaa qof ehel aad tihiin Bible-kiisa waxaan kaloo rabaa in aad u adkeeyo waxaa jiro dad badan oo dhaho Sweetcoin-ka lacagta igu jirtaa qof kale u dira si uu igu soo diro qofka markuu lacagta Sweetcoin kala soo baxayo shuruudo jirto qofka dibadda joogo ehelkaaga marka u dirtid shuruudiya hortaal waxa
number laga rabaa inuu ka haysto Sweetcoin as well waxaa laga rabaa in invitation dad uu sameeyo marka qofka dibadda joogto eelkaada Sweetcoin ha u dirine Sweetcoin-ka adiga saan ula soo bax yani information-ka saxda kula soo bax laakiin meesha Bible-ka oo kaliya ayaad waxa ka dhiganaysaa Bible qof ay heltihiin warga kugu daalinayna meesha waxa gelinaysaa marka Bible-kii ehelkaaga ama asxaabtaada ilaahay hadda ani Bible-kaygi waa geliyay ma fahanti koobiya soo dhahay waa geliyay marka submit waa dhahayna okay waxa la dhahaa marka thank you for filling this form out your reward will be sent shortly any question is related to payment reach out to lola@sweetcoin.in if you have any general questions please reach out to our influencer team at influencers@sweetcoin.in keep promoting to inmo saaxib yaal marka hadda waxa lagu hambaleynayaa in aan dabcan lacagteedii formkii aan ku bixinay aan gudubsaday marka sidaan ay qof kasta lacagtiisa u dirsan karaa su'aashu marka waxay tahay sidee lacagtan aan hadda ku dirsaday Bible-ka saaxiibkay ama ehelkayga aan ugu heli karaa telefonkayga ma dhib badna qofka ehelkaaga la hadlay waxa leedahay 3 maalin kadib lacagtii ku soo gaartay fiiri marka lacagtii ku soo gaartana waxa jira email lagu soo diro doono emailkaas lagu soo diro doono waxa lagu sheegi doonaa lacagtaada inay ku soo gaartay okay marka lacagtaada emailkaas lagu soo diro waxa wacay qofka ehelka ahaydeen waxa leedahay saaxiib lacagtii xawaalad soo dhig xawaalad dhan u baahan telefonkaada kugu soo dhacay xawaaladaha markina Soomaaliya hadda horumar la gaaray ama M-Pesa ama maartay Taj ama Tawakkal ama maartay xawaaladaha kala duwan ee hadda Soomaaliya ka jiro hadda email aan noo soo dhacay emailkaas aan fiirino dabcan from Sweetcoin waa emailkaas notification mujida notification Sweetcoin influencer claim يعني received حاول thank you عبد الشكور you will be sent your reward within 3 business days Monday Friday UK time يعني shirkadan waxay ku degan tahay ama xarunteedu weyn ku taala UK marka 3 maalmood oo shaqo business days يعني sabti axad waa ka bixinay marka hadii lacagta la baxday oo kale maalin jimcaha galabkii oo kale sabti axad xisaabta ku darsan isniin iyo talaadi ka bilaabanay 40 ku kartaa laga yaabaa if you use Bible please expect an email from Bible when your payment will be made hadii Bible aad process ka dhigatana waxaad ogaataa in Bible email kugu soo diri doonto marka warkan saan u aqri waa un sheeko iyo maaragtay dhiirigelin okay meesha marka ugu muhiimsan waa meesha Soomaalida ay ku gaadan yihiin meeshan waxa lagu dhahaa NP lagu dhahaa fiiro gaar ah Sweetcoin reserves the right to withhold payment if any fraudulent activity or untrue posting is detected يعني shirkadda Sweetcoin waxay soo hubinaysaa macluumaadka aad social media ku baahisay oo dhan macluumaadkaasi soo hubinay hadii waxyaabaha oo sharcigeeda khilaafsan ay kugu aragto sida adigoo ku dhiirigelin dadka inaad waddanka iska bedesho kale ina xeelada iyo shortiga sidoo kale lacagtaada way hayn doontaa marka sida hadhow lacag u kala qaadinaysiin iyo xeerarka kula maraysan ida taqaan saaxiibayaal intaas waa macluumaadka Sweetcoin ila joog ha iga tagin waxaan rabaa xogta ugu muhiimsan inaan maanta ku sheego